السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن داوديال مل ولبا joogtaan kusoo dhawaada wararka aynu idin kaga hayno wadanka Itoobiya iyo xaaladihii u dambeeyay. Qodobada aynu wararka kusoo qaadani doona waxa kamid ah bayaan ay soo saareen ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxay ku sheegeen in TPLF jabkii ugu weyn ay u geysteen maalmihii u dambeeyay dagaalada halkaasi ka soconay. Dhanka kale TPLF ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in ay dagaaladii u dambeeyay iyagu ku gacan sareeyeen. waxayna sheegeen in deegaano hor leh ay ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya. sidoo kale waxaynu eegi doonaa guud ahaan dagaalada ka socda wadanka Itoobiya iyo xaaladihii u dambeeyay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal. kusoo dhawaada channelka oo subscribe noo saar asxaabtaadana la sii wadaag. taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 Oktoobar 2021. haddii aynu ku bilowno dhankaas iyo waqooyiga Itoobiya gaar ahaan gobolka Xamaaradu dagaalada ka soconaya. ciidamada militariga Itoobiya fayeenkooda bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dagaaladii u dambeeyay TPLF la galeen in ay uga gacan sareeyeen. wuxuuna intaasi ku raacay in jabkii ugu weynaa abid ay TPLF ay dhadhamisay ayuu ku sheegay bayaankiisa. waxaanu ku sii diray hadal dheeraad oo ahaa in TPLF ay doonayso in gabi ahaanba Itoobiya la wareegto. waa sida uu hadalka u dhigay. waxaanu sheegay TPLF hamiga ay leedahay ayaa ah ayuu yiri in ay guud ahaanba ay gacanta ku dhigaan Itoobiya sidoo kalena ay ka tuqlusaan dawladda Abiy Ahmed. waxayna doonayaan ayuu yiri in guud ahaanba Itoobiya intay gacanta ku dhigaan ay iyaguba xukumaan. waxaynu la soconay Getachew Reda afhayeenka Tigrayga oo marka hadlayay warbaahinta afka Tigrayga ku hadasho in uu sheegay in Maqale aan iraahday caasimada Tigrayga in gabi ahaanba laga rokeeyay ciidamo military Ethiopian ah ayna abidkood iyo wixii haatanba ka dambe aysan soo gali doonin. afhayeenka waxa uu intaas ku daray guud ahaan Tigrayga waxa uu sheegay gobolkooda in ay Tigray kaliya ay ka talin doonto dawladda xitaa hadii aynu heshiino ayuu yiraahday maalin hore mar uu ka hadlayay warbaahinta afka Tigrayga ku hadasho. Tigray waxa uu yiri guud ahaan deegaankeeda waxa hayni doono qayb kamid ah Tigrayga ama ciidamada TPLF ayuu yiri afhayeenka ciidamada aan iraahday kooxaha TPLF. intaasina waxa uu ku daray in ay wacad ku mari doonaan hadii xitaa ay dawladda la heshiiyaan in gobolka Tigrayga ay gabi ahaanba iyagu ay ka talin doonaan. inuu soo laabano dagaaladani ka soconaya waqooyiga iyo labada dhinacba guulaha ay kala sheeganayaan. waxay dhanka kale iyaguna ay sheegteen in dagaaladii u dambeeyay ciidamada militariga Itoobiya ay fadhiisiimay ka kiciyeen. waa sida iyagu TPLF hadalka ay u dhigeen. waxayna sheegteen in deegaano hor leh ay ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya jabkii ugu weynaana ay soo gaarsiiyeen. waxaynu baraha bulshada ku aragnay Facebookyada gaar ahaan ciidamada militariga Itoobiya oo nolol lagu qabtay oo kooxda TPLF ay wareysanayaan. mid kamid ah ciidamada TPLF ayaa waxa uu ku dhahayay waad inaad iga daba tiraahdaan erayada aan anigula halka uu isaguna dhahayay Abiy Ahmed waa rufiyaan waa tug. waxa uu ku amray ciidamada ay nolosha ku qabteen in ay ku daba dhahaan. sidoo kalena waxa uu ku amaanayay madaxweynaha Tigrayga oo dhahayay waa madaxweynaha ruuxiga waa madaxweynaha kaliya ee jiro. dabcan muuqaaladaasi waxay haystaan baraha bulshada. ciidamada sidaas loo galaya waxa ay sheegteen in ay TPLF maalinnimadii u dambeeyay ama 24 saacadoodkii la soo dhaafay iyagu ay jab weyn u geysteen. halka aanu arkaynay muuqaalo cusub oo ay soo bandhigayeen ciidamada militariga aan iraahday kooxaha TPLF ciidamadooda. dagaalada halkaasi ka soconaya labada dhinac dabcan waxa ay kala sheeganayaan guulo balse xooga halkaasi naga soo gaaraya waxa cadeyn kaliya oo halkaasi ka soo baxay oo arkaynay muuqaal ay soo duween kooxda TPLF ay gacanta ku hayeen qaar kamid ah ciidamada militariga. walow ay iyagu ku sheegeen in ciidamadaasi ay isa soo dhiibeen sida ay iyagu hadalka u dhigeenba. haddii aynu u laabano dagaalka iyaguna ka soconaya dhankaas iyo deegaanka Canfarta
dagaallo culus ayaa laga soo sheegayaa in TPLF iyo kooxaha maleeshiyaadka canfarta ay halkaasi ku dhexmaray. duqeymo culus ayaa weli waxa ay ka socdaan kooxaha TPLF-na ay u geysanayaan caasimadda canfarta, waxaana la soo sheegayaa in gebi ahaanba la hakiyey guud ahaan diyaaradooyinkii aan idhaahday halkaasi tegi jiray ee rakaabka ahaa. waxaana la soo sheegayaa in TPLF qaybo ka mid ah deegaanada canfartu aan idhaahday degmooyinka in ay haystaan, walow ay dagaalada halkaasi ay canfartu ku kala qaybsan yihiin maadaama koox ka mid ah canfartu ay taabacsan yihiin ciidamadan TPLF, halka kuwa qaarna ay iyaguba ay raacsan yihiin ciidamada militariga Ethiopia ee Abiy Ahmed ama dawladda haatanba halkaasi ka arrimsa. dabcan dagaalada iyaguna ka soconaya in halkaasi waxay og yihiin dagaallo ay canfartu ku kala qaybsan ka tahay labada dhinac, walow ay TPLF ay ka faa'iideysanayso dagaalada halkaasi ka socdo maadaama ay TPLF ay tahay kooxda kaliya ee ka dagaalamaysa deegaano dhowr ah. waa tahay saaxiibayaal, waxaynu u laabanaynaa guud ahaan dagaalada in wadanka Ethiopia ka socdo. waxa iyaguna kamid ah jabhada OLA oo ah jabhad Oromiya oo horeyna uga talin jirtay qaybo kamid ah deegaanka Oromada ayaa iyaguna waxa la soo sheegayaa in dagaaladii ugu baana ay la galeen ciidamada militariga Ethiopia. waxaynu la soconay in jabhadaasi haatanba loo aqoonsan yahay jabhad argagixiso ah maadaama ay yihiin qaar kamid ah ama jabhado ka soo horjeeda dawladda dhexe ee Ethiopia. dhankaas iyo dagaalada jabhadaha ay ka wadaan iyaguna waxa ay sheeganayeen in guulo ay ka gaareen ciidamada militariga Ethiopia. guud ahaanna wadanka Ethiopia haatanba waxa ka soconaya dagaalaad oo xoogan, walow haatanba waa Abiy Ahmed uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub ee 5 sano soo socoto ka arrimini doonto wadanka Ethiopia. waxayna dadka shacabka ah ay doonayaan in isbedel uu keeno Abiy Ahmed, guud ahaanna uu soo afjiro dagaaladani ka socdo waqooyiga Ethiopia iyo guud ahaan Ethiopia. beesha caalamka ayaa waxa ay ku baaqday in Abiy Ahmed sanadaha soo socdo ama bilooyinkan soo aadanba in uu xal waara uu ka keeno ayaga iyo TPLF dagaaladan uu kula jiraan ay soo afjiraan. horeyna waxa lagu sheegay aan iraahday horeyna waxa ay ballan qaaday beesha caalamka in haddii Abiy Ahmed uu soo afjari waayo dagaaladani iyo sidoo kale maamulada iyaguba la shaqeeya in ay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan. dabcan isbedelo weyn ayaa laga filayaa in Abiy Ahmed uu u keeno Ethiopia, gaar ahaanna dagaaladani uu soo afjiro maadaama haatanba uu xukuumad cusub soo dhisay. waa tahay saaxiibayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa war waxaynu idinkaga haynay wadanka Ethiopia iyo guud ahaan dagaaladii halkaasi ka socday. sidoo kale waxaynu idinka codsanaynaa inaad janaalka subscribe noo saartaan, aadna ku taxnaataan halkani. intaan warkan war la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.